salaamullaahi calaykum daawadayaal soo dhowaada meel kastoo aad dunida ka joogtaan wararka ciyaaraha caawa xaggaas iyo afrika haddaynu aadno maxamed saalax xulkiisa ku hogaamiyey sideedamaadka koobka qaaradda afrika iyagoo africost ay garaaceen xulka masar ayaa iska xaadiriyey sideedamaadka koobka qaaradda afrika markii ay rigolayaal ku garaaceen xulka africost kulan rigolayaal ku dhammaaday kulankan ayaa ahaa mid labada xulba ay si fiican u ciyaareen weliba ciyaar ahayd mid isku dheeli tiran oo dhinac waliba labada xul iskaga mid ahaayeen xulka africost ayaa ku fiicnaa dhanka kubad samaynta halka xulka masar uu ku fiicnaa dhanka fursadaha iyo halista la gelinayo goolka xulka kale isku soo wada duubo labada xul ayaa ku fashilmay inay wax goolah iska dhaliyaan 120 daqiiqo waqtigii dheeriga ahaa lagu daray kadib labada xul ayaa isla aaday rigoroyaal ay ku kala baxaan weliba midkood gaadho wareegga xiga ee tartanka qaaradda afrika xulka masar ayaa rigoroyaal 4-5 ah ku badiyey ciyaar iyadoo maxamed saalax uu ahaa xidigii dhaliyey goolkii guusha ayna ku soo baxeen haddaba maxamed saalax oo culays aad u fara badan uu saarnaa xagga dhanka qarankiisa kaasoo ah inaadan masaarida hadda aadan waxba u qaban oo culayskii saarnaa Messi oo kale ayaa ka saarnaa xulka qarankiisa kaasoo taageerayaashu inta badan ku eedeeyaan maxamed saalax waxba uma qabto qaranka haddaba caawa ayuu u saaray sideedamaanka koobka qaaradda afrika maxamed saalax haddaba waxaynu ka sugnaa inuu koobkaas hadda uu masaarida gacanta ka saaro oo una geeyo qaahire ka dejiyo saalaxow mana waalastaa ninka saalax waxba lagama qaban karo kooxda iyo qarankaba haddaba ninkan waa Messi-ga Afrika aan waxba laga qaban karayn waxaan u rajaynaynaa hadda waxaan arki doonaa isagoo hadda koobka wadana waan arki doonaa insha Allah ninka maxamed saalax waa nin masaarida ninkaas waxba lagama qaban karo masaarida waxay leeyihiin waxa noo buuxisaa booskii Abu Tarika ninkaas Abu Tarika waan malaynayaa Abu Tarikaha wuxuu noqonayaa Masar ee labaad